waa maalin Arbacaa 13 Abriil 2011 waa gudaha magaalada Gurceel xarunta stationka ee magaalada walaal adigoo magacaaga nagu bilaabaysid bal noo waran. Bismillahir Rahmanir Rahim. Magacayga waa Ayuub Aadan Cali. Ayuub halkee ku dhalatay? Degmada Buur-Hakaba. da'daada waa meeqa? 20 sano. qabiilka ka soo jeedid? Eelay aan ka ahay Asmulki. yaa ka sii tahay? Aan ka sii ahay Juuraan. xilligaa ku biirtay ururka Al-Shabaab? Bishii 9aad 2010. halkee uga biirtay oo xilligaa aad joogtay? Xilligaa anoo shaqo doona waxaan joogay degmada Gaalkacyo. iyada dhexdeeda ayaad kula biirtay? iyaga shaqaan ka raadsanaya markaa meel isteeriya baan shaqo ka doonayay liire ka soo biir halkaas taa shaqo rabtid saas ana ugu biir. macnaha meel stuudiyo ah ayagu ay lahaayeen unbaad shaqo ka rabtay? sidaa baad ugu biirtay iyagii marka? maxay xirfadaha lagu qaban jiray stuudiyahaas? stuudiya anaga qaas ahaanta shaqsaanta waxaan qaban jiray kombiyuutarka baan ka shaqeynay qaybta kombiyuutarka aan qaabilsanaa cajaladooyinka qaabka loo duubo iyo qaabka mimira wax loogu shubo kaliya. iyagu marka maxay stuudiyahaas magaciisa? waa Bukhaari stuudiyo oo ku yaala degmada Gaalkacyo gaar ahaan astaanta Galgudug meel caan ah ku ag yaalo barxadda adoo labada qayb u dhaxaysa. mudiirkiisa ama maamulihiisa maxaa lagu magacaabaa? Farxaan. Farxaan ayaa ma dari karo. yaa kaloo kala shaqayn jiray Farxaan? anaga stuudiyaha waxay igala shaqeyn jireen 2 qofood, midna Cabdiqaadir Xasan baa la yiraahdaa midna Muuse. sidaadoo kale shaqo doon ahayn mise milkiga lahayn? Cabdiqaadirka milkiga ku jira, Muusahana Farxaan ku la dhashta. stuudiyuhu si toos u hoos yimaada marka? Farxaanka Farxaanna si toos u hoos yimaada? si aan ku ogaano sheegi karo 4 qofood bay ku leeyihiin 4 qofoodna. stuudiyaha marka ma Al-Shabaab si toos u hoos yimaada mise waa stuudiyo isa ganacsi? ay Al-Shabaab ayagu gacan saar leeyihiin stuudiyana iga iska. marka shaqooyinka Al-Shabaabka gudaha stuudiyaha waa lagu qaban jiray? okay, canjirada badan oo dabcan aad siday baa jiray marka ma waxaa lagu duubay stuudiyahaas canjiradaas oo dhan? canjiladaha stuudiyaha laga helayaa qaarkood xamar baa Cabdiqaadirka ka keenay qaarna meesha yeelan stuudiyana laga duubi jiraa. stuudiyaha ma lagu editin garayaa marka? jarayska may waxaa xamar baa laga keenay iyagoo saa u duuban laakiin ninkaas farsamadaas ayaa yaqaana qaabka wax loo dhigay karaya. xafladooyinka markuu soo qabo iskuulaadka ka soo qaado buu meesha ku habeen jira laakiin barnaamijyadan kalena inuu yaqaanin kala laakiin qaababkan tababarada iyo dagaalka ah xamara laga soo sameeyay? xamara laga soo sameeyaa asaana ka keena laakiin meesha gudaheeda waa lagu daawo jiray kaliya? aan lagu sii duubi jira. marka shaqooyinka Al-Shabaab aad u qaban jirtay maxaa ka mid ah adiga? aniga stuudiyaha kaliya baan ku ekaa. hadda markaan safarka u socday ku biiraysaa baa lagu yiri nin baa iga soo kaxay meesha saasaan u socda. maxaad ku beeraysaa buu ku yiri? raggaas baan kugu biiranaya uu yiri dukaanna meeshaan kaaga furay Beledweyne saasaan ku soo baxay. marka Beledweyne u socotay? Beledweyne u socday. inaad la shaqaysid ururka Al-Shabaab? inaan dukaankaasna ka shaqeeyo iyagana qayb u la shaqaysid sida lagu sheegaa. marka shaqooyinka aad la qaban rabtay maxaa ka mid ah? anuu hadda weli lima sheegin laakiin lagu diiwaan gelinaya kaliya baa leedahay. yaad ka taqaanaa madaxda iyo mas'uuliyiinta Al-Shabaab? madaxdooda dadka ma qaana ninka hadda soo kaxeeyay mooyaane. ninkaasoo la yiraahdo Saalax Ali Barako. ku celi? Saalax Ali Barako. Saalax Ali Barako. yuu u dhashay? Raawin. intee joogaa? Beledweyne ku ogaano. Gaalkacyo ka soo wadayso isaga ma? islama soconin oo iga soo horeeyay. ka daba tag meel yiri marka? saa meesha igu sugaya nooc alaab kale waa soo qaatay soo socda. Gaalkacyo wuxuu kugu sugay Beledweyne? Beledweyne igu sugay. yaa kugu xiriiriyay isaga marka? isaga meesha igu yimid stuudiyo kugu yimid.
marka qolada stuudio asagoo xiriir bay leeyihin waa isaqaanan suwaas garanayaan sidee la tahay okay marka wax hadda ayaga aad ka faa'iiday oo aqoon al-shabaab ma jiraan anuu computerka hadda mooye wax kale aqoonta computerka aad u leedahay intee laagta cajaladaha sida loo duubo iyo qaabka mimiriyaasha wax loogu shubo neeradaa taqaanaa macnaha neerada editing ma samayn kartaa may ma samayn kartid ma samayn kara awl intee ka baratay computerka awlo aqoonna saa ma lahayn xamar markaan joogi jira aan arki jiray qaabka wax loogu duubo xamar marka yaa xiriir la laheed oo la joogi jirtay markaa xamar stuudiyoan ka shaqeynaya xamar waxaa la shaqey jirtay stuudiodaas magaciis ka shaqeyn jira magaciis alfurqaan alfurqaan yaa lahaa dad ganacsata intee ku yaallaa bakaaraha bakaaraha ilaa dhinacee suuqa daawada mas-uuliyiinta ahlu sunna waljamaaca yay hadal hayaan al-shabaabku ma sheegi karataas dad aad ka maqashay intaad al-shabaab ku jirtay dhexdooda waagaan dad ay hadal hayaan oo sheegayaanaad maqashay ma jiro maya anigu gudahooda waaga uma guda gelin waxna kama sheegi karo su-aashaas yaa laayay culimmadii gaalkacyo joogtay ee lagu leey jiro ahlu sunnada ahaa culummada waxa laaya anigu ma sheegi karo laakiin amniyaadka dadka qaabilsan baan sheegay anigu kale 8 qofood ay sideedooda noo magacaabo mid waxaa la yidhaha farxaan cabdiweli mid waxaa la yidhahdaa mid waa farxaan farxaan yuu u dhashay reer mudug waaye reer mudug ma reer puntland ba mase waa galmudug puntland adu da-diisu waa meeqa sano jir oo kale soddon imilaha midabkiisuna waa caato madowna weye caato madow dhirirkiisuna waa dhoobiya gar ma leeyahay karayara buu leeyahay wejigiisa ma wax daqaraamiya ku yaala mase uu siman yahay ay wejigiisa siminaano calaamad lagu aqoon karo gooniya ma jirtaa may sheegi kara haye farxaan waan gartay yaa kale muuse haye intoo kale isagana nooga sheeg gar buu leeyahay isagana lafna waa leeyahay caato iyo balar waxaaga u balaaran yahay yuu u dhashay oo walaalo labadood midabkiisuna midabkiisu waa caddaan waa caddaan muxuu qaataa badanaaba shaar buu qaatay surwaal cimaamad iyo qamiisna khamiisana jamcaha buu qaataa ninka kalena ninka kale labadooda waa sheegtay xasan cabdiqaadir xasan isaguna waa gar weyn uu leeyahay aana jireer waa gartay ninka kale waxaa la yidhahaa cabdiweli gare cabdiweli cali gare haye isagana nin weyn waa laf leh gar weyn leh isagana okay midabkiisa iyo dhirirkiisa waa nin joog le waaye oogaa weyn midabkiisana waa maareen haye afar baa sheegtay afarta kale sheekh ibraahim baa la yidhaahdaa sheekh ibraahim isagana intoo kale ka sheega dhaqsana sida gar buu leeyahay gar weyn ira ku jirto nin gaaban waayse midabkiisa maareen waayse ninka kale ibraahim macalin keerow baa la yidhaahdaa ibraahim macalin keerow yuu u dhashay waa raaweyn eelay waayse helaa waay haye ninka kale cabdiraxmaan baa la yidhaahdaa waa wiil yar dadka kalena waxaa la yidhaahdaa da-diisa meeqa waa cabdiraxmaan waa 23 milaah yuu u dhashay eelay waayse dhirirkiisa iyo caddaankiisa iyo midowgiisa dhirirkiisa waa nin xoogaa dheer waaye midabkiisana waa maareen calaamad gooniya lagu aqoonsan karo calaamada sida lagu aqoonsan karo malahaas haye qolada kale ninka kale axmed baa la yidhaha isagana geer uu leeyahay agaas da-deeda oo kale waayse geer buu leeyahay madow iyo caddaan maareen waayse dhirir iyo madow iyo gaabni maareen waayse dhirirkiisana waa dheere waa dheeriya meeqa sana jir camal ku qiyaasi lahayd 30 iyo 20 iyo 26 milaas okay ninka kale
intaas waaye. toddobadaa qofood marka sidee ku baratay anugu waa lay sheegay inaan dadkaan anugu meesha stuudiga iskale inay dadkaas xiriir la leeyihin marka hore waa lay sheegay shuruudda koowaadna laygu xiray bay ahayd inaan shaqada ku galo. shuruudda koobaad maxaa lagugu xiray inaan ayaga ka mid noqdo al-shabaab inaa ka mid noqonaysa haye shaqada saan ku galaa bay ahayd. toddobada nin oo amniyaadka kuwa iyagu la baashiri jiray miya oo gacmahooda ku dili jira dadka taas anugu ma sheegi karo laakiin kor ahaan baan ka ogaa laygu sheegaa wejigooda garanaya maxaa lagu sheegay inay amniyad yihiin raggaasna ka tirsan yihiin. meeqa bilood baa stuudiga joogta gaalkacyo bukhaari 6 bilood. canjaradii ugu dambeysay shabaab ka soo baxday stuudiyaha taalay wax ma nooga tilmaami kartaa mid ahayd noocay ahayd dagaalka ay ahayd sidai u hadlaysay mid hadda cajiradaan ku dhex jirto magaceed xarakatu shabaab mujaahidiin baa ku qoran midaan oo xilliga ciidda ee wax noocaas taas baa ugu dambeysay miya